xildhibaanada ku soo baxay maanta golaha wakiilada ee gobolka Togdheer waxay kala yihiin sidaan xisbiga UCID wuxuu helay 4 xildhibaan oo golaha wakiilada ah xisbiga kulmiyana wuxuu helay 4 xildhibaan xisbiga wadani wuxuu helay 7 xildhibaan saas bay ku dhan yihiin 15 xildhibaan oo loo kala helay hadii aan si faahfaahiyo xisbiga UCID waxaa soo baxay Faysal Yusuf Jaamac Xaashi Guuleed Maxamed Warsame Salabaan Axmed Carab Jaamac iyo Jamaal Cali Aadan Jaah xisbiga kulmiyana waxaa soo baxay Cabdikariin Aadan Cali Dubbad Amiin Salabaan Jaamac Rooble Nuuraddiin Axmed Dayib Cabdiraxmaan iyo Jaamac Abokor Maxamed Mire xisbiga wadani waxaa soo baxay Xuseen Aadan Cabdi Axmed Xasan Axmed Cilmi Geelle Xasan Kayse Salabaan Nuur Warsame Faarax Food Axmed Maxamed Hurre Ducaale Cabdillaahi Yuusuf Axmed Abokor Axmed Maxamuud Cabdillaahi Jaamac Maxamuud Faarax Jaamac Maxamed todobada xildhibaan baa xisbiga wadanina u soo baxay saasay tiradii ku dhan tahay musharaxiinta guuleystay ee soo baxay waxay kala yihiin musharaxa koowaad ee xisbiga UCID Cabdirasaaq Ibraahim Cabdi wuxuu helay 5,097 musharaxa labaad ee xisbiga UCID wuxuu helay waxa weeye Maxamuud Axmed Maxamed waxaanu helay 3,244 musharaxa saddexaad ee xisbiga UCID Mukhtaar Cabdi Maxamuud wuxuu helay 3,198 musharaxa afraad ee xisbiga UCID Farxaan Cilmi Caalin isagu wuxuu helay 2,574 waxaanu musharaxaas ku soo baxay fractiontii jajabkii codadkii laga dhiibtay degmada xildhibaanada xisbiga kulmiye ee soo baxay iyagu waxay kala yihiin Axmed Ducaale Shire Jaamac oo helay 3,705 Khalid Xasan Xaaji Deeriye oo helay 3,652 Aadan Xuseen Maxamed Mire oo helay 3,255 Axmed Cabdi Aadan Cali Darbaan oo helay 3,790 xisbiga wadani musharaxa koowaad waa Muuse Umal Abees oo helay 6,258 waana musharaxa uga codka badan leh degmada Burco waxaa ku xiga Suldaan Jaamac Nuux Cali oo helay 5,808 waxaa ku xiga Maxamed Xirsi Axmed Wacays oo helay 5,190 waxaa ku xiga Cabdiqani Cabdilaahi Axmed oo helay 4,277 waxa musharaxa ugu dambeeya waxa weeye Mustafa Maxamed Muuse Qaasaay oo helay 4,290 guud ahaan 13 xildhibaan baa degmada soo baxay